toban been iska jooji inaad nafsadaada u sheegto. badanaa waxyaabaha aad nafsadaada u sheegto waxay noqon karaan waxaan adiga kuu fiicnayn. kuwani waa 10 been aan loo baahnayn inaad nafsadaada u sheegto. Number 1, qof wanaagsan ma ahi. Si kastoo aad positive u tahay mar uun sidaa waad ku fikirtay. beentani saameyn ayay noloshaada ku yeelan kartaa. ugu dambeynna waxaad aamini doontaa inaadan ahayn qof waxtar leh. inaad aaminto adiga inaadan lahayn caqli iyo karti aad wax ku qabsato waxay xitaa kaa dhigi doontaa inaadan samayn wax isku day ah. waxayna joojin doontaa dadaalka aad riyooyinkaaga gelin lahayd. Number 2, ma haysti wax igu filan oo iga farxiya. inaad ka murugsanaato waxaadan haysan ama waxaadan heli karin kaliya waxay ku keentaa waqtiga oo kaa sii luma. waxayna kaa yeeshaa inaad arki weydo nimcada aad haysato. dadka ugu farxadda badan dunida ma ahan kuwa ugu nasiibka badan iyo kuwa ugu taajirsan, laakiin waa kuwa arki kara wanaagga nimcada ay haystaan. Number 3, riyadaydu waa midaan rumoobi karin. marnaba qof hadal negative ah ee uu kugu dhahay dartiis ha u joojin riyadaada. qalbigaaga raac, riskis qaado, riyooyinkaaga way dhici doonaan. waa inayna cabsidaada ka weynaadaan. inaad aaminto kuna dhegnaato riyooyinkaaga waxay ku keentaa inaad horumar samayso. Number 4, kama tagi kari dadkay dhaawacaaniga. noloshaadu waa in yar, naftaadu waa inaad daryeeshaa. yeelo ixtiraam iyo jacayl nafsiyeed. iskana fogey dadka adiga daa'in ku dhaawaca. way adag tahay oo way xanuun badan tahay, laakiin ogow wax kasta okay ayay noqon doonaan. adigana okay ayaad noqon doontaa. inaad ka socoto xaalad ku xun adiga kaama dhigayso qof daciif ah, laakiin waxay kaa dhigaysaa qof xoogan. Number 5, xiriiradayda hore waxay ahaayeen kuwo waqti lumis ah. waxaa jira dad loogu talagalay inay noloshaada ku jiraan iyo kuwo aan loogu talagalin, laakiin taasi kama dhigayso xiriir walba ku soo dhaafay inuu ahaa waqti lumis. xitaa haddii uu ahaa mid ku xun ama mid aadan adigu rabin, ugu yaraan wuxuu ku baray casharo nololeed. waa inaadan ku qasbin qof inuu noloshaada ku sii jiro. hadday qiimahaaga ogyihiin dadkaas way joogi doonaan. Number 6, wax ii fiicnaan doona ma leh. noloshu ma u soconayso markasta si fudud. waxay leedahay waqtiyo xunxun iyo kuwo fiican. qayb ka mid ah noloshana waa adigoo xanuunsada, guuldareysta, dib u dhac sameeya, khaladaadna sameeya. waxa kaa dhigaya qofnimadaada ma ahan dhibaatooyinka aad wajahdo, balse sida aad uga falceliso waxna uga barato dhibaatooyinkaas. marka ay kula noqoto inaysan wax rajo ah jirin, waa inaad xusuusataa qowlka Alle, inna macal usri yusra. culays kastaba fudeed ayaa ka dambeeya. laga yaabee maanta inay ku tahay maalinta noloshaada ugu xun, laakiin berito waxay ku noqon kartaa maalinta ugu fiican noloshaada. laakiin ugu horeyn waa inaad meeshaas gaartaa. Number 7, guuldaradu waa waxaan ii fiicnayn. mararka qaar waxay qaadataa guuldarooyin badan si aad u gaadho guushaada. qof waliba qaladaad buu sameeyaa. guusha iyo horumarkuna way soo daahi karaan. inaad isku day samayso haddana guuldaraysato waxay mar waliba ka fiican tahay inaadan waxba samayn. fikrado kastoo ee aad lahayd ee kuu shaqayn waayay waxay kuu kaxaynayaan kaliya fikraddii ugu dambeyn kuu shaqayn lahayd adiga. waa caadi inaad dhacdo, laakiin marka aad dhacdo kadib waa inaad kor u soo kacdaa, iskuday kalena samaysaa. xusuusna oo hal albaab haddii uu kaa xirmo mid kale ayaa kuu furmi doona, laakiin waa inaad meesha joogtaa si aad u qabsato fursaddaas. Number 8, uma baahni dad cusub inaan barto. nasiib daro dhammaan saaxiibtinimada ma aha kuwa waara. dadku way isbedelaan, noloshuna way dhacdaa. xiriirada qaar way go'aan, halka qaar kalena ay jiraan weligooda. hore u soco, niyaddana ku hayso macquulgalka ah inaad xiriiro cusub samayn doonto, dad wanaagsanna aad baran doonto. Number 9, dadka iga tagay la'aantooda ma joogi kari. xitaa mararka qaar xiriirada ugu wanaagsan waa la iska fasaxaa, waana la iloobaa. laakiin waqtigaaga iyo enerjigaaga ha ku sii lumin. hana u murugoon dad adiga kaa tagay. isbeddelku waa qayb ka mid ah nolosha. dadku way imaadaan wayna baxaan. micnaha haddii uu qof kaa tagay ma aha inaad ilowdo kuwa weli ku garab jooga adiga. dhoola cadday, qosol, ilmey, adigoo weli ku qanacsan dadka aad haysato. Number 10, waqti ugu filan ma haysto.
inaad u malayso inaadan haysan waqti kugu filan waxay ku dhaafin kartaa fursado badan ee aad qaadan lahayd. hadday wax muhiim kuu yihiin waa inaad siisaa waqti ku filan. saaxiibayaal, waa intaas. I hope inaad ka hesheen muuqaalkan. haddii aad ka heshay ha iloobin inaad like saarto muuqaalkan. haddii aad naga cusub tahayna subscribe channelkeena YouTube-ka. insha Allah saaxiibayaal, until muuqaalkeena xiga waxaan idinku dhaafay salaam.